xaflad ballaaran oo ay soo qabanqaabiyeen xarunta dhaqanka iyo weliba cilmi baadhista iyo akhriska ee aw jaamaca Cumar Ciise laguna maamuusay Allah u naxariistay ee geeridii dhawaan uu geeriyooday qoraaga Soomaaliyeed ee aw jaamaca ayaa waxay ka dhacday xaafadda Islii iyadoo ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah qorayaasha Soomaaliyeed iyo weliba mas'uuliyiin ka kala tirsan Soomaalida waxaana halkaasi khudbado kala duwan oo laga soo jeediyay lagu sheegay taariikhda kala duwaneed ee Allah u naxariistay ee qoraaga Soomaaliyeed aw jaamac Cumar Ciise iyadoo la sheegay inuu ahaanin si weyn uga tagay cilmi badan iyo waliba taariikh kala duwan oo uu ka ururiyay dhamaanba ummadda Soomaaliyeed iyadoo xafladda ay soo qabanqaabiyeen qaar ka mid ah qorayaasha iyo ururada kala duwan ee xaafadda Islii waxa halkaas ka hadlay Axmed Ali Idaacha oo ka mid ah taariikhyahanada Soomaaliyeed isla markaasina ay si weyn isugu dhawaayeen Allah u naxariistay aw jaamac kana sheekeeyay taariikh nololeedkiisa iyo waliba qaabkii kala duwanaa ee uu taariikhda Soomaaliyeed u ururin jiray geesta kale waxa halkaas ka hadlay qaar ka mid ah qabanqaabiyaasha xafladaas iyo waliba agaasimaha rugta dhaqanka iyo waliba cilmi baadhista ee aw jaamac Cumar Ciise Cabdirasaaq Ciro Maxamed Shiine Puntland TV Nairobi